marka hadda waxay joogaan inay fariimo coda ay soo duubaan nimankii awal ayagoo naaxo gafanayaal ma aragtay banaanka istaagi jiray shirkii 18 sano sanad walba hal mar ay qaban jireen oo bisha Shacbaan dhici jiray bisha Ramadaan ka horeysa shirkii dhici jiray sanadkan isugu imaadeen inay kala shakiyaan inay kala farxadaan kooxdan waxay u qaybsantaa xagga maamulka marka la yiraahdo 3 qaybood qayb waa qaybta xaabada oo askarta qaybna waa middle levelka qaybta dhexe ee hogaamiyaasha majmuucaadkaas iyo kooxahaas qaybna waa madaxda sare marka inta badan dhibaatooyinku waxay soo gaaraan oo dagaalada ama ku dhinta ama ku dhaawacma waa qaybta askarta iyo kuwa taliyaashooda kuwa kale waa gafanayaal naaxay oo meelo qarsoon ku jira oo lacagta baadaayo dadka ay ka qaadaan siday rabaan ugu takrifala nafta kuwan yararkaana ku takrifala dalka Soomaaliya inuusan dhaqaaqin oo horay u dhaqaaqin ka shaqeeya 24 saac marka dawladda Soomaaliya saddexdoodaba kuwada furimaha wala soo horimaanaya waa kooxda waa askartan yararka oo xaabada iyo kuwa hogaamiyaasha loo soo dhiibo kuwaas goobaha dagaalka ayay wax ku noqdaan oo ku naafoobaan laakiin kooxda gafanayaasha gadaal bay jiifaan lama arko dagaal ma galaan halkaasi awaamirta ka soo dhiibaan waxay qasab noqotay istiraatiijiyad dawladda Soomaaliya inay qaadato dhibka loo wada sinaado oo aan kuwan kaliya aysan noqon kuwa la macaamileen madaxa laga dilay in madaxa laga wada togto taasa keentay in madaxdoodii la beegsado ragii ugu waaweynaa ayaamihii u dhawaatay shirarkii jaraa'id waanaga qabanaynay niisa soo saaraysay ragii ugu waaweynaa goobahoodii jilib kunyo barow saakow heblow ceelbuur maaragtay hiiraan meelo ka tirsan ayaa lagu tagay shabeellada dhexe qaar baa lagu tagay meel ay ku badbaadeen ma jirto marka runtii waxay noqotay hadda dhibka waa loo wasinaaday taasi waxay keentay sanadkan shirkii 18 sano sanad walba hal mar ay qaban jireen oo bisha Shacbaan dhici jiray bisha Ramadaan ka horeysa shirkii dhici jiray sanadkan isugu imaadeen inay kala shakiyaan inay kala farxadaan inay remote control ay telefoonno isku soo diraan oo halkaas maaragtay waxooda ay ku qoostaan oo meel ay isugu yimaadaan ama isugu imaan karaan inaysan jirin nimankii lahaa naftaan ilaahay ka gadaynaa janna rabnaa dadka ku tartarsiinayo ku baraarujinayo kooxahooda jannada in loo kala hormaro waa nimankaas xitaa shir inay yimaadaan kari waayay godadkii si fiican godadkii u sii galay mahad karatay af labadiis yeeray odayga Abu Cubaydaha laga soo saaray meesha fariin xuno muuqaal aan ahayn oo coda soo duubay sababtoo tahay muuqaalka rafaadkiisa la ogaanaya wajigiisa la qiimeynaya meesha noociisa la arkaya qofna fi ku jirta ma yahay mase waa nin indhihi goteen oo soo u cararayay dhibaatooday marka hadda waxay joogaan inay fariimo coda ay soo duubaan nimankii awal ayagoo naaxo gafanayaal ma aragtay banaanka istaagi jiray mahad karatay waa la mid fariin cod soo duub nimankii horta halkaas ay joogaan marka runtii de waa best strategy waa tii lagu beegsan jiray madaxdoodii hore oo godane oo kamid ahaa oo ma aragtay wixii kale oo ka dambeeyay oo dhan tii ay ku baxeen way waana mid cadaaladda cadaaladdu waxay tahay ninka maskaxda ka dambaysa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed inuu san badbaadin waayo wiilkan yarka waa ka soo baxaan waa ka soo cararaan qaarkood dhaawac baa lagu qabtay waa la daaweeyaa wiilashan yararka iyo xaabadan waa un hadii la wacyi geliyo way ka soo carari qaarkoodna hadda waa ka soo baxeen oo bishii kuntumeeya ka soo baxday bil kasta ka soo cararta askar bay waayeen meel ka qortaan laakiin gafanaha gadaal jiifa waa inuusan badbaadin gafanaha gadaal jiifo dambiilaha waa in cadaaladda la hor keenaa ummadda Soomaaliyeed dib ku geystay